ciidamada dowladda ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka sameeya deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud halkaas oo inta badan ay maamulaan al-shabaab. taliyaha ciidamada guutada 12aad ee ciidamada xoogga dalka Generaal Axmed Maxamed Taleedis ayaa maanta shir jaraad ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka waramay deegaanada ay howlgallada ka sameeyeen ciidamada dowladda. howlgalladii ugu dambeeyay waxa laga galay deegaanka Bood iyo Muqokori ilaa iyo Budbud. إن شاء الله وحي كلنا ولا سيود دونا هدو إله يرادو قوتداني وحي كميتا عيدن كحوق الدلك الصوماليات وحينا أودي عصنتاي مرول بانو تاغنتاي إني خايب كنا قطو وحي ديبو حرينتا الدلك الصوماليات عدو هيستا الشباب وعدو أمد الصوماليات وعدو جيسك أفريقيا وعدو عالم كعب marka ma ahan cadow oo maxaan ku yiraahdaa la dhihi karo waa niman iska falaaga ah ma ahan waa cadow diinta islaamka loo soo diray waa cadow ummadda maxaan ku yiraahdaa caalamka oo dhan dhibaato ku ah inta kadib waxaan mar dhow sameynay howl dib u heshiisiin ah oo xurguf dhex martay laba beelood oo walaala ah oo deegaamadan Galgaduud iyo deegaanka degmada gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud dadkaas abaar ay u soo qaxeen oo runtii abaar xun ayaa jirtay abaartaas ayayna ka soo barbaxeen xoogaa yar oo roob ah oo ka daay dhinaca Hiiraan alxamdulillah waxa weeyaan dadka maaragtay ogaa sharcigoodu iska liitay markii hore oo maaragtay xogaa dawladeena markay burburtay waxa ka dambeeyay xogaa dhibaato badan ay jirtay adiga waxa dhacay xogaa daaq iyo Soomaalida lagama waayo inay biyo isku disho saasay xogaa isku dileen urguftaas dhex martay iyo dilkaas dhacay inuu sii baahin darteed ayaa anagoo maxaan ku yiraahdaa kaalmeynayna maamul goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo naga codsaday inaan wixii amniga aan sugno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutadan 12aad iyo guutada 10aad oo isku jira waxa jirtay in deegaano fara badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud ay ciidamadiina markii hore ku sugnaayeen oo Muqokori ay kamid tahay markii dambana iskaga soo baxdeen maxay idinka qorsheysan hadda howlgallada ka dhaca meelaha aad sheegtay Muqokori oo kale howlgallo badan ka dhacay welina howlgalladaasi way socdaan ilaa iyo meesha la yiraahdo Budbuda howlgalladu ka socdaan deegaanadaas waxaa naga qorsheysan maadaama iyadoo hawsha socota ay soo dhex gashay xogaa doorashadii iyo maxaan ku yiraahdaa waqtiga kala guurka ahay waxaan aad u rajaynaynaa in maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha cusub asaguna shaqadiisa oo bilaabo haduu ilaahay garab galo annaguna waxaan u diyaarsanahay inaan hawsheena meesha ka sii wadno cadowgana aan ka saarno deegaanada hadda uu joogo iyo kuwa ka Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga bulsho Beledweyne.